daba adigu haddii qisadan ay ku qabsan lahayd ama reer noocaa ah aad habeen usoo martin lahayd waddo noocee ayaad qaadi lahayd talow maskaxdaadase maxaa ku soo dhici lahaa sideese ayaad u fakiri lahayd haddii adiga tan ay ku qabsan lahayd sheeko cajiib ah oo qosol badan la yaabkeedana wadato qofba dunidan wax ayaa lagu garanayaa ama lagu xantaa oo bulshadu ay ku sheegtaa hadda ka hor baa waxaa la yidhi nin bakhiilnimo iyo gacan adeeg lagu xanto oo bulshadu ay ku garanayso waxbixiskana uu aad ugu adag yahay ayaa waxa u soo martiyey nin ay saaxiibo ahaayeen oo uu aad u qiimeeya qof uu aad u qadariya ayaa u soo martiyey deetana wiil yar u dhalay ayuu suuqa u diray oo wuxuu yidhi aabba martidaa noo timide orodoo suuqa aad hilib inoo soo iibi hilib aynu raashin ku karsanno orodoo noo soo iibi wiilkii yaraa wuu baxay suuqii ayuu aaday muddo markii la sugayey isagoo aad u soo daahay ayuu yimid oo weliba aad u haraadsan odaygii baa yidhi warniyo waad soo daahdaye maxaa ku helay maxaad u soo dhaqsan weyday hilibkiise aan kuu dirnay meeday waxba ma wadid oo waad gacmo maran tahay wiilkii ayaa yidhi aabba markaan halkan ka baxay waxaan tegey dukaanka hiliblaha ninkii hiliblaha ahaa markaan u tegey wuxuu igu yidhi warniyo waxaan ku siinayaa hilib wanaaggiisu isiduu u fiican yahay gabigiisuba aad u malayso burcad ayaan ku siinayaa wiilkii waxaan ku idhi buu yidhi joog haddii sidaa ay tahay waxay ugu soo dhacday buu yidhi diiba hilib burcad u ag uu siinaya in aan burcadka laftirkiisu aan gato waxaan tagay buu yidhi dukaanka burcadka waxaan ku idhi waniga waxaad i siisaa burcad aad u wanaagsan wuxuu yidhi waa yahay waxaan ku siinayaa burcad gebigiisuba aad u malayso malab burcad aad moodayso malab ayaan ku siinayaa waxaa is idhi buu yidhi ugu soo dhacday oo hadduuba burcad malab camal uu siinaya maan malabka laftirkiisu gata waan baxay buu yidhi haddana waxaan tegay dukaanka malabka waxaan ku idhi buu yidhi niyahow malab aad u wanaagsan isii wuxuu yidhi buu yidhi waxaan ku siinayaa malab wanaaggiisa iyo siduu yahay aad u malayso malab wanaaggiisa iyo siduu yahay aad u malayso biyo ayaan ku siinayaa waxaa ugu soo dhacday buu yidhi hadduuba malab biyo aad u malayso uu siinaya biyaha laftirkooda guriga yaallaane in ninka martida ahi aynu ku marti qaadno oo aynu ku soorno biyaha guriga inoo yaalla odaygii oo marka horan dhibsanayay inay wax ka baxaan ayaa yidhi wallen caqliga iyo raganimada aniga ayaa kugu dhalay oo doqon ma ahid buu yidhi halkaa markay marayso odaygii baa yidhi war waxaa dhan waxaa ka daran warniyahow wax weliba waxaa iiga daran oo waxaa dhan arrinkaa dhan iiga daran kabihii cusbaa ee aan maalin hore kuu soo gaday ee aan maalin hore kuu soo iibiyey lacagta iiga baxday markaad intaana dukaan isu maraysay ee aad hiliblaha tegaysay ee aad burcadlaha tegaysay ee aad malablaha tegaysay sawkabihii ma aysan dhammaan sawkabihii ma aysan dhammaan buu yidhi odaygii wiilkii qoslaya ayaa wuxuu yidhi aabba waxaan intaa dhan ku wareegay anigu doqon maahi buu yidhi nin caqli le baa nahay kabihii aad ii soo gadayne way ii yaallaanoo ma qaadan maanta dhanna waxaan ku wareegayay waxay ahayd ninka martida kabihiisa ninka martida ahna inta oo hadal ah dhagihiisa way ku dhaceen haddaba haddii ninkaan martida aad adiga ahaan lahayd oo reerkaa ninka ku soo beegmay ee u soo martiyey ee waxa ay dushiisa ka dhacayaan oo waxaas oo weedhi erayada maqlaya haddii aad adiga ahaan lahayd maxaad ku tilaabo qaadi lahayd miyaad xanaaqi lahayd ood caroon lahayd ood gebigoodba isaga tegi lahayd inaad kabahaada gashatay miyaad ka dhaqaaqi lahayd miyaad u caqli celin lahayd se inaad ku qosasho ood la yaabta ayaad iskala joogi lahayd daba adigu haddii qisadan ay ku qabsan lahayd ama reer noocaa ah aad habeen usoo martin lahayd waddo noocee ayaad qaadi lahayd talow maskaxdaadase maxaa ku soo dhici lahaa sideese ayaad u fakiri lahayd haddii adiga tan ay ku qabsan lahayd